kii bishii 8 2026 halkan waxaanu ku qabanaynaa sidii aynu horeba u sheegnay jawaab kooban oo aynu kaga jawaabayno hadalkii isdaba joogga ahaa ee sida habqanka ah uga soo baxay ayaamahanba xisbiga saaxada siyaasadda ku cusub ee socod baradka ah ka sidaynu la wada soconno maalin dhaweed waxa ka dhacday dhacdo isbitaalka weyn ee magaalada Hargeysa Group Hospital dhacdada iyada ah oo dhacdada adduunyada ka dhacda intii aanay hay'adihii ku shaqada lahaa ka hadlin saacado gudahood waxa ka hadlay afhayeenka xisbiga ka isagoo si hubsiimo la'aan arinta uga hadlay waxa isweydiin leh adduunyada markay dhacdadaas oo kale meel ka dhacdo sidee baa loo maamulaa haddii ay meel dhacda ka dhacdo oo geeri timaado talaabada ugu horeysa la qaadaa waxa weeye in ciidamada bilayska lagu wargeliyo ama iyagu haddii ay war helaan ay sida ugu dhaqsaha badan goobta u yimaadaan inta kadib talaabada ugu horeysa bilaysku qaadaa waxa weeye inay goobta xidhaan si ay cadeymaha u ilaaliyaan talaabada ku xigta loo baahan yahay waxa weeye in meydka la baaro oo dhakhtarada gaarka ah ee ku takhasusay baarista meydku ay baaraan kadibna ay ka soo saaraan warbixin caafimaad warbixinta caafimaad kadib ciidamada bilaysku waxay soo saaraan warbixin baariseed iyagoo ku go'aan qaadanaya natiijada baarista caafimaad ee la helay inta kadib haddii dhinaca dhibanuhu ay ku qancaan oo aanay wax cabashii jirin waxa loo ogolaadaa in meydka la aaso dariiqa caamka ee la isla yaqaano ayaa qadiyaddan kale loo maraa dhacdada iyada ah iyadoo aan isbitaalka ka hadlin iyadoo wax natiijo caafimaad aan laga soo saarin iyadoo hay'adihii bilayska hawsha ku shaqada lahaa aanay ka hadlin iyadoo qoyskii dhibanuhu aanu ka hadlin ayuu si hubsiimo la'aan oo taxadir la'aan oo xishood la'aan oo aqoon la'aan oo indhaadaygu afayeenka xisbiga ka uga hadla wuxuu ku xadgudbay natiijadii arrimaha ka soo bixi lahayd caafimaad oo ka hor dhacay wuxuu ka hor dhacay natiijadii baadhiseeda bilayska wuxuu meel kaga dhacay dadkii tiiraanyeysnaa geeridu ku timi intaasoo qalab oo isdaba jooga oo siyaasadaan meel laba ka soo gelin oo bini'aadminimada iyo damiirka taa dhaawac ku ah ayuu afayeenkaasi galay intaa kadib waxa dhacday in ciidamada booliisku u yeedheen si ay wixii uu ka hadlay ay wax uga weydiiyaan arrintaasi sharciga sidee bay u waafaqsan tahay iyo taana sidee baa adduunyadu u maamushaa ayaa wax la iska weydiin karaa booliisku waa hay'ad dastuuri ah oo dastuurkeedna ku qeexan xeer bay leedahay u qaara oo ay ku aasaasan tahay xeergar ay maamulka shaqadeeda ee baadhisaha dembiga u martana way leedahay bilaysku sidiisaba adduunyada oo dhan wuxuu u xil saaran yahay 3 shaqo waaweyn inuu dembi dhacay ka daba tago inuu dembi socda wax ka qabto inuu dembi soo socda ka hor tago saddexda waajibe waaweyn ayuu ciidanka bilaysku leeyahay ciidanka bilaysku wuxuu xaq u leeyahay qof kasta oo uu dembi ku tuhmo inuu qabto ama u yeedho haddii uu ku qanco qofkaasi inuu dembi galay oo uu dembi sameeyayna uu maxkamadda geeyo haddii uu ku qanci waayo inuu qofkaasi dembiile yahayna uu sii daayo isagoo maxkamadba geenin sida ku cad qodobka 24aad ee xeerka habka ciqaabta oo soo baxay 1963 dawladdii uu madaxweynaha ka ahaa Aadan Cabdullaahi Cismaan ra'iisul wasaarena uu ka ahaa Cabdirashiid Cali Sharmaarke ayaa lagu shaqeeyay ilaa maanta waa xeer 63 jir oo soo baxay 1963 63 sanadoodba waa lagu dhaqmay oo dhaqangal buu ahaa waxaan arkayay rag lahaa hanaloo sheego qodobka sharciga sheegaya waxaan leeyahay anigaasi bilaash wax idin baraye qodobka 20aad ee xeerka habka ciqaabta ayaa waajibaadka bilaysku ka bilaabma bilaysku muxuu yahay
yaa bilays la yidhaahdaa shaqada bilaysku maxay tahay yeedhista uu bilaysku cud ku samayn karana qodobka 24aad ee xeerka habka ciqaabta ayaa sheegaya baadhistu halkay ku dhamaatana qodobka 26aad ee xeerka habka ciqaabta ayaa sheegaya haddaad diyaar tihiin caawa laga bilaabo 10 bilayska baan idin dhigaya iyo qodob waliba farqadu ka kooban yahay waxa ay sheegayso bilaysku adduunyada oo dhan wuxuu u yeedhaa ciddii uu doono suu su'aalo weydiiyo ra'iisul wasaarihii hore ee waddanka Ingiriiska mudane Tony Blair ayaa bilaysku u yeedha isagoo xafiiska jooga su'aalay weydiiyeen madaxweynihii hore Faransiiska Nicolas Sarkozy ayay wax weydiiyeen oo ay baadheen madaxweynihii hore waddanka Kuuriya 14 saacadood oo xidhiidh ah ayay isagoo madaxweynaha bilaysku su'aalo weydiinayeen madaxweynihii hore waddanka South Africa Jacob Zuma ay bilaysku u yeedheen meel kale ba ha eegin ra'iisul wasaaraha imika xilka haya waddanka Israa'iil wadagii maalintii dhawaadina aqoonsaday Benjamin Netanyahu bilaysku u yeedha oo su'aalo weydiiyay teena marka loo soo noqdo Soomaaliland gudoomiyaha xisbiga wadani Xirsi Cali Xasan baa loo yeedha oo tagay xildhibaan Siciid Maxamed Ismaaciil oo qolaha wakiilada imika kamid ah bilaysku u yeedha oo su'aalo weydiiyay Muuse Biixi Cabdi oo gudoomiye ku xigeenka kulmiyaha ayaa bilaysku u yeedhay qof aan loo yeedhin ma jiro qof yidhi bilayska u tagi maayana maanta koor weligeed lama arag bilaysku markay qofka u yeedhaan qofka suuxu xaq u leeyahay inuu loo yar qabsado una su'aalba ka jawaabi maayo looyarkaygu ha ka jawaabo wuxuu xaq u leeyahay inuu dhawaban iska aamusaya laakiin xaq uma leh bilayskaba uu iman maayo taasi waxa weeye bilayskaba ma aqoonsanin waxa la yidhi islaam beri gaadhi soo raacday ayaa wax ka yara si noqdeen dabeetana dadkii la socdayna waxay ka xishoodeen inay u sheegaan islaanta inta amiradu salla calayha si ka noqotay markii magaaladii ku sii dhawaan bay jirooyo magaaladii burcayba kamiyaan dhaweyn dabeetana baa hooyo burca waa bay dhawdahay mas'alaad magaalada ku galaysaa imika xisbiga ka hama sidoo doonayaan waddanka ku maamulo oo xisbi ku yahay isagoo aan shuruucdii waddanka akhrisan isagoo aan shuruucdii waddanka eegin isagoo aan qodob qura tilmaamin isagoo wala bilaysku noomaba yeedhi karo oo bilaysku haddaanu qof u yeedhi karayn haddaanu qof xidhi karayn haddii aanu qof dabageli karayn muxuu bilaysku yahay war bilaysku qofku doonaabuu qaban karaa qofku doonaabuu yeedhi karaa dastuurkaa sheegaya qodobada aanu sheegnay baa sheegaya taariikhda aanu sheegnay baa sheegaysa laakiin waxa xaq loogu leeyahay inay qofka haddii lagu qanacay inuu dambiile yahay oo dambi galay eedaysanaa inay maxkamadda geeyaan bilaysku wax ma xukumo laakiin tuhum buu leeyahay tuhumkana waxna wuu ugu yeedhi karaa waxna wuu ku qaban karaa intaana markaan qodobkaba faahfaahintiisa aan sidaa ku dhaafo waxaan ka hadlay